waxaa aakhirka ramadaanka lasoo gabagabeeyaa tartamo dhinaca kubadda cagta oo lagu qabto garoomada magaalada Hargeysa. tartamadaasi waxaa ka qayb qaata kooxo dhalinyaro oo u ciyaara xaafadaha iyo xarumaha ganacsiyada kala duwan. dadweyne badan ayaana ku xiran daawashada ciyaarahaasi oo wariyaha BBC da Sadiq Maxamed Burmad warbixintan uu nooga soo diray. way sooman yihiin waxaana ay dareemayaan gaajo iyo haraab. badiyaa ciyaaraha kubadda cagta ayay isku maaweeliyaan ilaa inta laga gaarayo xilliga afurka. garoomada ku yaala magaalada Hargeysa ayaa bisha Ramadaan oo kale lagu qabtaa tartanka kooxaha kubadda cagta. waa la sooman yahay laakiin haddana annagoo shacabkayga raali gelinayna waxaanu isku daynaa inaanu enerjigayga u hurno si aanu insha Allah dadka sooman u madadaalino. wallahi kullu waa xaalad adag insha Allah laakiin waanu u dulqaadanaa wax kastoo soo gaadhay shacabka dartood. waxa garoonka yimaada dad badan oo taageerayaal u ah kooxaha waxaana ay u tahay madadaalo. dhammaantood waxaa soo tarban waxay daawanayaan ciyaartoyda soo bandhigay xifradooda. dadkana waxa u tahay madadaalo ay daawanayaan ciyaaraha. كل إن كسب كون أستان لهيدا سر رسم جاوون أستان هيدا إن تدخل عبادة استان ومساجد الجلال والرمضان تبع هذا شهر عبادة وأنت أنا واركب وقت النومس لكن كل هذا اللي يروح وقع ثاني ده أنت صلاة عصر صلاة مخلوقة حيسا إن وقت خير في الاستان وقت كل أفلام هذا واحد مريسا وريق كبد عكتي هالك كسعودة قبل دي صدق هذا التيم يسقسوا هراي لبا ayaa finalka u soo bixi doona koobkana kala qaadi doona. tartamada noocan ahi bisha Ramadaan ayay ku kooban yihiin waxaana jira dad badan oo jecel in la ballaariyo oo aan hal bil lagu soo koobin. Sadiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa. aadayu mahadsan yahay Sadiq warbixintaasi. mar kale dhammaantiinba waxaan leenahay ciid wanaagsan idil ahaantiinba ummadaha muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaanba ummadda Soomaaliyeed. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa. waad ku mahadsantihiin intaanu mar kale kulmayno. waxaan leenahay ciid wanaagsan.